أصحاب غاد السلام دمانتين maanta waxay rabaa halkan aan kaga hadla Pride-ka macnaheedu iyo maxaa loo dabaaldegaa Pride-ka waxaa loo dabaaldegaa inuu is aqbalno inagu dadkaan nahay inaynu jiraan seksiyo kala duwan bulshadeena sidaan hore fiidyadooda ugu soo sheegay inuu qofku dareemo magaranaysa inuu naftiisa joogo gurigiisa ku qanacsan yahay isagoo qofku yahay waxaan kale dabaaldegnaa inaan xasuusano dadkii naga soo horeeyay xuquuqdeena usoo dooday usoo dagaalamay qaar ka mida laga yaaba inay u dhinteen. waxay usoo dagaalamay waxa weeyaan equal rights, inay dadku xuquuq leeyihiin bini-aadanka oo dhan. waxaa kaloo loo dabaaldegaa Pride-ka in laga hadlo xuquuqda carruurta mustaqbalka ee qaniisiinta soo socota si aanay dhibaatooyin iyagana usoo gaadhin fara badan, sida looga sii hortegi lahaa amba looga wada hadli lahaa. ay isku accept gareyn lahaayeen waqti hore noloshooda inay aqbalaan iyagu dadkii yihiin. waayo had iyo jeer markay waalidka heterosexual ku dhalaan waxay kuu khasbayaan isku day inaad heterosexual noqotid, waayo waalidku had iyo jeer waxay support siiyaan feelingkooda iyaga gaarka ah, laakiin ilmaha feelingkiisa waxaad moodaa inay dhinaca ka yara eegaan, ay u arkaan inay wax qalada yihiin qofku dareenu kusoo dhashaahay. marka waa muhiim in ilmaha yar la baro inuu is accept gareeyo isagoo qofku yahay, amba inaga laftigeena is accept gareyno qofkaan nahay, aan magaranaysaa dareeno feelingkeena dareeno inaan free u nahaan samayn karno, in feeling nagu iska leeno ilaahay nagu abuurayahay. inaan magaranaysaa xitaa even haddii aad ku jirtid isqarinaysid, aad ku jirtid maxay dhahaan khaanad amba meel isku qarinaysid, aada ofkaad hay qarinaysid, waa muhiim inaad accept garaysid qofka adigu tahay, waayo gudahaaga kugu jira haddaa ogtaada qofkaad hay accept garaynaysid aanad hayd garaynina qofkaada kugu jecel lahayn, alla waxaa ugu jira shaydaan wayaan, waxa meel xun bay ka yimaadeen, waxa aniga ma aha. marka waxaa laga yaaba inaad naftaada dhaawac soo gaadhsiisid, inaad dhibaatooyin soo gaadhsiisid. anu waxaan garanayaa wiilal iyo gabdho aan waddanka waqtigaan imida iyaguna yimidoo joogay, qaar ka midi drugs isticmaaleen, qaar ka midi dhinteen, sababtoo dhinteen cidi garanayn, waayo marka faamilkaaga bulshada kugu wareegsan ay ku accept gareyn weydo, adiguna lagaa dhaadhicin wax qalada tahay, marka ugu dambeysa aduu nafta xunsa waxaan nafteeda waa khalad, qof khaladaan nahay, qof xun baan nahay, qof aan caadi ahayn baan nahay. marka laga yaaba in naftaada damage soo gaadhsiisid amba magaranaysaa meel xun ku dhacdid. marka aada bay muhiim u tahay inaad is accept garaysid. waxyaabaan Pride-ka u celebrate gareyn waxyaabahaasaa kamid a accepting yourself, isku jeclow sidaanad aabaha iyo hooyada iyo qof kale toona u jecleen, adigu naftaada isku jeclow si aad naftaada u badbaadisid, waayo bulsho badan bay nagu wareegsan oo burush xaar la sidata oo ku dhibaataynaysa.